أنا وناكسنا قيارتها وذان كصاحبنا يويد الكيمبا ميل والبو جوجتان وحد الله إن وقت قاعدين وعناضو لما أنتم بمقالك اللي جري عيد والبو مقالك اللي جري سبحان الله سبحانه وتعالى عن كجبر إن أموره لا ده إلهين وسهل إلهي سبحانه وتعالى أنا أولاده وبركة أنت أولادون كان إلهي أولاد باري هسي أنت وجردون كان جور وناكسني مستقبل وناكسن عبوين هسي يقف والبو مقالك اللي تكوكب ربي سبحانه وتعالى دم بجودي دم بجوالد كذب إلهي هدافه إلهي سبحانه وتعالى نفرج غير قبو يسفلني إلهي هو سهل وحاسدك وحلا النهاي ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم حاسدك وحا قدام بين يهوق قصاره وعن ربي سبحانه وتعالى عن كبرينا حاسدك إن قريوه ذي كأركان إلهي سبحانه وتعالى وحاود يسر إن حاسدين تنو هوق يبقى إلهي وكريدو الله يكتنا العقمه موقالك الله يكتكو قبته ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح حاسد وكسو هالدي دونا خيباها وسي فريماها كومنتيغا وعن ايق دونا وربحين كسابسان دقال لسوكيه oo marka la ka qarxay meelo kala duwan oo ka tirsan Soomaaliya ayaan daradii ugu weyneed oo ka dhacday meelaha dagaalada ka socda qaarkood ayadoona la arkayo dad nool oo la gubayo sababo ku aadan dagaal qabiil taas oo Soomaaliya muddo fog ee la dhacaysay isla markaana ay ka soo daashay waxaase ayaan darada ugu weyn ay tahay in la arkayo dhalinyaro u dagaalamaysa qaab qabiil sanada 2020 ayadoo lagu jiro hadaba waxaan eegi doonaa warbixino ku saabsan doorka dagaaladaasi ay ka qaadatay dawladda Soomaaliya iyo waliba meelaha kala duwan dagaalada uu ka dhacayo oo qaarkood lagu eedeynayay inay ku lug leeyihiin maamulada ka jira deegaanada lagu dagaalamayo sida Jubbaland oo lagu eedeynayo in hoggaanka Jubbaland wax ay ka ogyihiin dagaalada ka socda duleedka magaalada Kismaayo iyo sidoo kale Koonfur Galbeed wax ay kala socdaan dagaalka socda wax ay ka ogyihiin dagaalka socda oo qaarkood meelaha qaar lagu gubayo dad nool iyo dagaal kale oo ka qarxay deegaanada ka tirsan gobolada Galguduud ama maamulka Galmudug deegaanada hoos yimaada hadaba waxaan eegi doonaa warbixino arintaasi ku saabsan waxaana qof walba Soomaali ah oo maanta aaminsan yahay inay tahay wax laga xumaado in la arko dhalinyaro sanada 2020 u dagaalamaysa qaab qabiil ayagoo isku dilaya qabiil iyo waliba deegaan ama ceelbiyood iyo wax lamid ah waxaana Soomaaliya tan iyo burburkii dawladii dhexe ee Soomaaliya 1991 Soomaaliya hareeyay dagaal qabiil ayadoona marba marka ka dambeeysa ay si yaraanayeen dagaalada qabiil isla markaana dadka Soomaaliyeed ay ahaayeen kuwa wax fahmaya kuna aadan inaysan macno lahayn qofka inaa u dishid qabiil uu ka soo jeedo ama u dishid aana qabiil oo ku aadan in qof ehelkiisa ah qof kale uu qof ka dilay ina kaga aarsatid qof aan waxba ka biinin waxaase hadda Soomaaliya mar kale ku soo laabtay sanada 2020 ayadoo la marayo dagaal qabiil waxaana dadka ay isku dilayaan wax la mid ah ceelbiyood ama deegaan iyo sidoo kale aanooyin qabiilka ku salaysan waxaana tani ay keentay in meelo badan oo deegaanada Soomaalida ah hadda uu ka bilowdo qax ayagoo dadka ay ka cabsanayaan in loo aaneeyo dagaalka socdo ama loo dilo qabiilka ay yihiin waana wax si weyn laga xumaado marka la eego laakiin meesha waxa ka maqan doorka dawladda Soomaaliya oo la doonayo in arintan si dhab ah ay u gasho waxaan eegi doonaa dagaalka ugu culus wuxuu ka socdaa deegaano hoos yimaada gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan degmada Wallaweyn iyo tuulooyin hoos yimaada waxaana halkaasi ku dagaalamaya laba qabiil oo ka kala tirsan beelaha Digli Mirifle iyo sidoo kale beesha Gaaljecel Jufa ka tirsan iyo sidoo kale shanta caleemood oo ka tirsan Digli Mirifle ayaa waxa dagaal qaraar uu ku dhaxmaraya deegaano hoos yimaada degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana halkaasi lagu dilay dad badan oo aan waxba galabsanin isla markaana loo dilay qaab qabiil arinta la yaab kale ee maanta ka dhacday Wallaweyn waxay tahay in la arkayo qof ka soo jeeda beesha Gaaljecel oo la gubayo isla markaana ay gubayaan qabiilkii kale dagaalka uu kala dhaxeeyay qofkii nool oo rafanayo waxa la qabadsiinaya dab ayadoo isla markaasi qofkii uu holcayo waxaana dadka qaarkiis oo dul taagan meedka ay sheegayaan wali inuu nool yahay isla markaana uu nuxnuxsanayo qofkii taas oo qofkii fiirsada si weyn uu la yaabayo muuqaalkaas ayaan u soo gelin karin sababo ku aadan in qofkii arkaa si weyn uu kaga naxayo gaar ahaan caruurta iyo haweenka waxaana arkaysaa qofkii oo cabaadaya oo ashhaadanaya waxaana la sii qabadsiinaya dabka oo waa la sii gubaya waxaana dad badan ay isweydiinayaan meesha dhacdadan ay ka dhacayso South Africa oo dadka lagu gubay jiray waxaana arintan ay noqotay arin aad maanta ay u hadalhayaan bulshada Soomaaliyeed in qof loo gubo qabiil uu yahay ama dagaal sokeeyo waana wax aad iyo aad laga xumaado marka la eego waxa ka socdo degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose xildhibaanada ka soo kala jeeda beelaha Hubeer iyo waliba Jufada Gaaljecel ka tirsan ee dagaalka ku jirta ayaa jeedinaya baaq ku aadan in dagaalka la joojiyo ayadoona isla markaasi meelaha lagu dagaalamay ay yihiin meelaha cidla ah waxaana la sheegayaa in qasaaraha dhimashada ay tahay
tahay mid aan la soo koobi karin meelaha qaarna waxaa ka dhacaya sidaan idin sheegay in dadka nool qaarkood dab la qabadsiinayo isla markaana nolosha lagu gubayo taas oo laga soo minguriyay ururka Daesh oo kol hore baahiye fiidiyooyo ku aadan dad nool oo la gubayo waxaase ayaan darraha kuwa wax bartay ee baraha bulshada soo dhigaya fiidiyooga qof Soomaali ah oo la gubayo loona gubayo qabiil uu ka soo jeeda dartiis waxaase muhiim ah in Soomaalida ay ka qayb qaataan joojinta muuqaalkaasi dhanka kale saraakiil ka tirsan hay'adaha ammaanka ee dawladda ayaa inoo xaqiijiyay in la soo qabtay shakhsiyaadkii geystay falkaasi qaarkood iyo waliba qaar ku baahiyay baraha bulshada haddana gacanta ay ugu jiraan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA dawladda Soomaaliya ayaa ka gaabisay wax ka qabashada dagaalada sokeeye ee ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan koonfurta Soomaaliya waxaana qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed ay ku eedeynayaan dawladda inay ku lug leedahay baahinta iyo waliba socoshada dagaalada qabiilka ama dagaaladan qabiil ee ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan Soomaalida gaar ahaan koonfurta Soomaaliya waxaana la sheegayaa dawladda inay arintaasi ay ku doonayso in ay ku marmarsiyootay in hadda aan la qaban karin doorasho dagaalada sokeeye oo soo cusboonaaday aawadiisa iyo sidoo kale cudurka coronavirus oo adduunka meelo badan oo kamid ah saameeyay ma aha oo kaliya halka dagaalada foosha xun ay ka socdaan gobolka Shabeellada Hoose ana aadna Kismaayo waxa ku dagaalamaya beesha Coormale iyo sidoo kale beesha Majeerteen ama Harti sida ay ku doodayaan odayaasha beesha Coormale waxa dhawaan la arkay meedad ka soo jeeda dad u dhashay beesha Coormale oo lagu jeejeesay qaarkoodna meedadkooda lagu istaagayo laguna jijiidayo duleedka magaalada Kismaayo mana jirto wax ay ka qabatay dawladda Soomaaliya iyo waliba maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland waxa lagu eedeynayaa inuu ku lug leeyahay dagaalka u dhaxeeya Coormale iyo sidoo kale Harti ama Majeerteen waxaana la sheegay in door weyn dagaalkaasi uu ka ciyaarayo maamulka Jubbaland rasaasta iyo waliba dhaqaalaha dhinacyada isdagaalayana qayb uu ka bixinayo maamulka Jubbaland si arintaasi foodo ah loo abuuro waxaana la sheegay wali in dagaalka u dhaxeeya beesha Coormale iyo sidoo kale Harti ama Majeerteen uu socdo waxaana arintaasi lagu macnaynayaa inay tahay dhul ballaarsi dhinacyada ku dagaalamaya duleedka magaalada Kismaayo qaarkood dhinac kamid ah uu sameeyo waxaas ayaan darrada ugu weyn ay tahay in la arko dad Soomaaliyeed oo ku istaagaya meedadka dad Soomaali ah isla markaana wadada ku jiidayo waana ayaan darro weyn in 2020 oo aan marayno la arko dad Soomaaliyeed oo jiidaya qof kale oo walaalkiisa oo Soomaali ah oo muslim ah meedkiisa dhulkana ku jiidaya sabab ku aadan qabiilku uu ka soo jeeda aawadiisa hadana aadna deegaano ka tirsan gobolada Galguduud iyo Mudug waxa la soo sheegaya in halkaasi uu ka qarxay dagaal u dhaxeeya beel ka tirsan beesha Habargidir gaar ahaan Saleebaan iyo sidoo kale laf ka tirsan beesha Mariixaan oo gagdhac waxaana wararka ay sheegayaan in dagaalkaasi maanta uu ka qarxay deegaano hoos yimaada gobolada Mudug iyo Galguduud waxaana la sheegay in dagaalka ay ku dhinteen dad badan oo kamid ah dhinacyada dagaalamaya kuwaas oo isku dilaya sabab ku aadan qabiil iyo waliba deegaan sidbursi ah waana ayaan darro weyn maanta in meelo badan oo Soomaaliya ka tirsan uu ka qarxa dagaalo sokeeye waxaase hadii dawladda Soomaaliya dhinacyada arintan qusayso al-shabaab qayb ay ka yihiin haddaysan xakameyn dagaalada sokeeye ka qarxaya deegaano ka tirsan koonfurta Soomaaliya haddana ka socda lana arkayo muuqaalo foolxun oo laga soo duubaya dhinacyada dagaalamaya oo isgubaya kuwa meed ku istaagaya haddana loo istaagin joojintiisa waxa halis ah in meelo badan oo Soomaaliya ka tirsan dagaaladan sokeeye uu saameeyo waana ayaan darro ayadoo adduunka horumar uu ku tilaabsanayo maanta in dhalinyaro Soomaaliyeed ay ku dagaalamaan ama ay u dagaalamaan qabiil ama ay isku dilaan qabiil ama ay sidoo kale dagaal ay isku dilaan dhul daaqsimeedyo iyo waliba waxa la midka ah sida ceelbiyood iyo dhul la isku qabsado waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan kala jeenaynaa in Soomaaliya qabyaalada uu ka dhax saaro dagaalka sokeeyana uu joojiyo waxa muhiim ah cid walba mas'uuliyad arintan ay ka saaran tahay inaysan fiirsanin dhibaatada shacabka ay isku geysanayaan heer in la gaaro qof nool in la gubo haddaba waxaan ku baaqaynaa dhammaanteen cod dheer aan ku leenahay hal joojiyo dagaalada sokeeye dawladda Soomaaliya doorkeeda ha ciyaartaana joojiso gacan bidixeenta bulshada ay ku sameynayso dhammaantiin Ilaahay idin xifdiyo Ilaahay umuraha الذين نسأله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا وأمور المسلمين كلها سهلا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا قاضي إلا قضيت ولا ينفع ذو الجد منك الجد إله مدى صومالي قلوبته يسكوكن وإله قرن النبي صومالي إله سؤالي إلهي dhammaanteen buu waxaan ku weydiisanaynaa gargaarkaaga iyo kalmadaada waxaan ka maangalnaa cuduraadka adduunka wareeriyay oo ugu horeeya coronavirus iyo wax la midka ya Allah ilaahu adaan ka maangalnaa ilaahu adaan maantaada ku jirnaa ilaahu dhammaanteen waxaan ku weydiisanaynaa kalmadaada iyo gargaarkaaga naxariistaada waxaan kugu weydiisanaynaa magacyada wanaagsan Allahu la ilaaha illa huwa arrahmaanu
الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى اله وحن كوغو ويدسنا غرغاركا كلمه يا الله اله دمانتين امورها لنا اله امورها لنا اله انو سهل اله فرج خير قب اله انو فر اله دمانتين بنو غرغار اله انو كلمه اله وحن كابرينا وان كويدسنا وان كسؤالنا كلمه غرغاركا يا رب اله دمانتين بنو كلمه اله انت حنوسن حنونك كدلقادو عافماد ugu بدل اله انت كربسن كربده كدلقادو اله ربي رحمن وفرج خير قب اله وفر اله وحن كابرينا مسلمين تبل ولبو جوغان اله نحريسو وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إله دمانتين با نصرك غرغارك كلمه كويديسنا إله إنو نحريسو